الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. runtii waxaan jecel oo kaliya inaan yar faahfaahiyo inta wasiirku ka hadlay bay xigmadu ahayd laakiin maadaama anagu ceelka guntiisa ku jirno wasiirku hawlihiisu badan yihiin anigu xoogaal u nahay inta aan rabay oo kaliya wax faahfaahiyo waa inta horta wasiirku sheegay waxaan ku shaqeynaynaa waa digreetada wasiirka oo dhammaan iskuul wal iyo gobol waliba haysto marka waxa weey mushkiladda imika jirta ee ardaydu maalin dhaweeyay waad arkayseenoo qaar baad wax ka duubteenoo wuxuu qofkii sharci ka dhiganaya qalad oo isagu galay ayuu haddana day nagu ciqaabaya waa tan imika wasiirku ka hadlayay qofkii qaladkii markuu galo waxa adduunyada qofku markuu qalad galo uu abriyo tama inaga mushkiladda imika inay haysato caruurteedu ku dhacday waxa weey isagii ardaygii qaldan ayuu haddana isagii doodaya oo TV-yada tagaya oo wasaaradii aflagaadeynaya oo imika wasiirka ka hadlay habeenkii waxay ku hadlayeen waxay ka dhigeen go'aan aw daawud garweyne leeyahay waxaan TV-yada ka maqlayay waxaan haysta wasiirnimo haysto agaasimanimo haysto kormeernimo haysto daawud garweyne haysta anu waxba ma qabsan karo wasaaraddu wasiir bay leedahay waa kan ka dhawaajiyay wasiirku waa digreetadan anagu fulina ka xafiis imtixaan ahaan digreetada wasiirkaanu koobi ku leenahay qof kasta oo wasaaradda wax kasta oo wasaaradda kamida wareegtada wasiirka khusaysa anagu marka qaybtayadii u baahay tan aanu fulinaynay laakiin wax anagu aanu samaysanay awoodna uma xafiiska imtixaanaadku inuu ardayda Soomaaliland imtixaan ka joojiyo cid waxbarashada talaabada ugu dambaysa leh dawaa wasiirka haduu rabo ma imtixaanka joojin kara ogolaan kara go'aanka ugu dambeeyay wasiirka wax kasta oo anagu qabano report-ka midka wasiirku diga hadlay anaga siinay ilaa aanu isaga siinana waxba ma soo bandhigno waxa weey marka horta in ardayda iyo waalidku fahmaan waxaan waa go'aan wasaaradeed go'aan qof qaadan kara qof arday imtixaan u diidi kara ama ogolaan kara ma jiro sharciga wasaaraddu ma ardayga imtixaanka ama loogu ogolaan kara ama loogu diidi kara yeenin horta badow noqonayna isla wuxuu fahanaa loo baahan yahay aniguna awoodu malihi taas waa ardayda iyo waalidkooda u sheegaya talabaad waxa weey sidii uu wasiir ka dhawaajiyay waad ogeydeenoo sanadad dhan baan waxaan la dagaalameynay in ardayda 3 sano la aynu joojino iskuulo dhan oo 3 sano ama jiray digreetada u dambeysay wasiirku waxay soo afjaraysa xataa waqtiga alla siiyo wasiirkii kooriya uu siiyay ayaa ku ekaa digreetada wasiirkay ku wada ekay waxoo dhaniba bataataba iskuuladii 3 sano ahaa oo ogeydeenoo waxa kamid ahaa Sheekh Madar oo Nuuruddin Caalami Macaarif iskuulo badan oo noocaas ah jiray wixii oo dhan imika waxa weey 3 sano halkiiba lagaga soo guuray marka problemkii aynu ka guurnay filinay marka tayinta aynu gudubno ee digreetadii wasiirku noo timid la yiri waxa iskuulada 3 sano laga joojiyay wax arday 3 sano ayaan loo ogolaan marka wasiirku waxa kharash wasaaraddu ku bixisay kormeerka guud iyo xafiiska imtixaanaadku way iskaalmaystaan kormeerka guud waxa intay awood u leeyihiin bay soo baaraan wixii ka awood badan xafiiska imtixaanaadka ay soo gudbiyaan waxa weey wasaaradda waxbarashada marka waxay leedahay sidii wasiirku ka dhawaajiyay oo imika casri ah serfaro ay ku jiraan ilaa 95 96 ardaygii sidii wasiirku idin sheegayay aynu imtixaanka eerka ka qaadnay 95 96 hadaad u baahataan waxaan tusinay natiijadiisii kuma ma sheegan karo qof kale kaarka ID kaarkiisii baanu haynaa oo computerized sidii wasiirku idin sheegayay marka waxa weey dadkuna wali waxay aaminsan yihiin waa ku dayd qofku shahaadii ka luntay baa noo yimaada wuxuu ku oranay shahaadayda hal ay siiyo waan qaato way iga luntay kuma oranayo marka hore way kugu deeyaan waxay aaminsan yihiin inaan documents jirin tan wasiirku sheegay anoo qalab casri ah haynaayo la kala garaynayo sheeg baa leeyahay iskuulka hay'adda rool numberkaagi kolku rool number xataa garay waayo waa la kala garaynaya isaga ku soo dhigay maca sawirkii qofka markaas hadda wasootan ad qaadatay markaas uu ku leeyahay waan qaato way iga luntay oo maxaad u sheegi weeyay horta mushkiladii waxa weey sidoo wasiirku ku bilaabay horta musuqmaasuqa hadayna inuu waalidkii iyo ardaygii aqoonyahankeenu la dagaalamin wasaaradda kaliya la dagaalami mayso shakhsiga la dagaalami maayo xafiis imtixaan lama dagaalami karo mushkiladda jirta waxa weey horta inuu dad noqono realiist runta ku dhaqma bootintana sidoo wasiirku ka dhawaajiyay bal google kan aad ku imtixaamantii damalaad wax kale baad gashaana galo oo adduunyada meel 3 sano lagaga baxo ama meel la wada dhigto standard 8 iyo form 1 midina ma jirto waxa weey marka waa dhowr baab ay ardaydu u kala baxday wasiirku marka waxa weey mar walba waxa laga duulayaa oo marjac noo ah arday waxa jira midalan imtixaankii eerka ka xanuunsaday laakiin si regular ah oo midalan wuxuu leeyahay eerkii baa ka xanuunsaday anigoo kaliya
markaa eg qalad bay ahayd waxay in imtixaanka dib looga qaado intuuna foominka tagin laakiin lodkiisii buu la socdaa oo misalan 13 maalintii imtixaanka la geliyay dhakhtarka galay uu isqariyo anagu dhakhtarka imtixaanka waanu ku qaadnay isbuu soo sheegin misalan ardayga markay dhakhaatiirtu soo cadeeyaan ay iskuulkiina soo cadeeyay inuu 13 ka baaqday waxa weey marka aan natiijada wasiirka ku celino waxa la go'aamin karaa de kaas oo kale wasaaraddu kolka guddi baa jira waxaan board bay dawladda wasaaraddu leedahay aw ka madax yahay wasiirku kolka barnaamijka dhan soo diyaarino go'aanka dambaysa la gaaraya kaas oo kale marka waxa weey caynkaas xaaladiisa waa la eegaya go'aankiina wasaaradda soo saarayso inuu sugayna laakiin taynu ka hadlaynaa dadka ugu jiidgoyna wax weey oo wasiirka tusnay arday sanadkii hore eedaha ayaa sanadka foofor inoo soo fadhiistay waan tusnay wasiirka waan soo qabanay sanadkii hore aanu haynay shahaadadii sanadkii hore aanu siinay baa la badbedelay waa tuu wasiirku ka hadlayay oo ama waxay bedelayeen date-kii isagoo ka baxay 14 15 ka soo dhigay 13 14 ama magacii baa la bedelay oo arday 13 14 ka baxay oo xaq u leh inuu fooforka u fadhiisto ayaa shahaadadiisu qof labaad iyadana siiyo qof labaad oo ka bixin 13 14 oo boodaya ayaa magacii qof ka bedelay dadkii shahaadaha noo sameeyay qaar kamida kuwii micna ardaydu waan wada qabanay iyaga bataatanba laakiin kuwii sameeyay mid kaliya imka naga maqan oo lagu daba jiray si ay kii kalena maalin walba maxkamadda la geeyaa go'aanka ugu dambeeyay ilaa wasiirka maxkamadda marka ugu dambeeya wasaaradda loo soo gudbiyay go'aanka gaaraysa imika waxa laga maalin walba maxkamadda waa la geeyaa waxa lagu daba jiraa cidii waxaan sameysay waxaan markaa ka digaynaa maanta wasiirkoodu ku yeedho noo balamiyo annagana noogu yeeray waxa weey in dadkan haynu u sheegno meeshan cadaawad arday la cadaadinaya ma jiro mushkiladda inaga ardaydeena haysataa ama waalidkeena haysataa waxa weey markiiba waxa ku leeyahay maxaa caruurta loo dhibaya maxaa caruurta loo cadaadinaya meeshan cadaadis ma yaal caruurta waxba loo taraya haddaanu faa'iido ku ognahay aniga ilaa 7 caruur iskuulada iga baxay haddaan faa'iido ku ogaana adeer bootin lahaayo gacanta ku haystay shahaadoodu waxa faa'iido ay leedahay ma jirto horta inuu waalidkii ardaygu fahmo waxa soo haray kuwan imika doodaya meelaha ka hadlaya waxa horta qofku uu soo garnaqsada dhaqan baynu leenahay war soo garnaqso horta miyaa laga gar daran yahay mise waad gar leedahay inaad dhaqsatid weey anaga amarka uu wasiirku nasiiyay waxa weey ardaygii 12 sano dhamaysta imtixaan ka qaada waki afkiisa imika wasiirku ka sheegay haddaba waa lagu baarayaa uu cid ku cadaawad kale oo meesha waxa la eegaya 12 sano aw jaamac u dhamaysatay haddaad 12 sano dhamaysatay nin walba ma qalde waad dhiganaysaa haddii aanad dhamaysan wixii kale sheegaysaa waa waxa adigu aad sheegaysa laakiin horta waa adigu waxa doonto sheego laakiin in laga jid joogo horta qiro wixii aad sheegaysa deesha adeeg ku taayay sheegtid laakiin inaan gardarra jirin meesha inuu wasaaraddu ka gardarayn oo xafiis imtixaan ka gardarnayn de qiro way watan waxaan ku shahaadadii 13 14 sanadka waxay noo galay idinku saxaafada ogaada balaayada damalaha ka heesaan oo idinku inuu khayrka inaan buunbuurisaan weey in ardaydu mudaharaad sameeyaan oo buuq sameeyaan waxba ay soo kordhinaysaa ma jirto idinkana waxba idin soo kordhin maayaan iyaga su'aal kaliya ma weydiisaan waan arkay saad imika su'aal ula boobaysan wasiirka la idin su'aal aan ku weydiino iyaga kuwa ka duubaysan maxaad u weydiinayeen su'aal ardayda ee oran weydeen goorma dugsiga dhaxa ka baxday yani waxa arkaysaa idinku inuu balaayadii hareeraha ka wadaan waxay faa'iido keenaysaa ma jirto waxa weey marka waa bil rabadaan weyn ku jirnaa caruurteena way qalday waalidku ku dhow waxay ku sasab waxay ku leeyihiin oo leeyihiin markiiba waxay ku leeyihiin waalidkii waxay yiraahdeen waan tahriibayna de ninka haduu ninkay u qoribay ilaahay inuu tahriibo kama celin kartid imtixaan ka reebi maayo iyagoo imtixaan galay way tahriibeen kuwa wada ee istara tahriibay qaar baa shalay xamar laga soo dejinayay kuwa secondaryyaasha ugu sareeyay Soomaaliland marka waxaan waa korba marmarsiyaha idin dhigayaan waxa weey xaqiiqdu waxa weey Soomaaliland xaqiiqda aan isku sheegno war waxa sidaa umika wasiirku inoo sheegay dastuurkeena dalka aynu u sameeyay ku mideysanahay Soomaaliland waxay noogu qoran sidaa wasiirku sheegay dugsiga hoose in 4 sano ardaygu inoo soo dhigto 1 ilaa standard 4 ka shara 5 ilaa 8 form 1 ilaa form 4 nidaamka uu wasaaradda waxbarashadu wasiirku digreeto ku soo saaray annaguna aanu waardiye ka hayna anagu waardiyada waxna digreetooyinka wasiirka qaranka ilaalinayay digreetada wasiirku waa heer qaran annaga la faraya aniga imtixaanka qof walba ninka gudoomiyaha imtixaanka ninka lagu amrayo shahaadad 3 sano ma saxiix karo digreetada ku qoran tahay arday 3 sano ma sii deyn karo horta weyn saa isku la faana hadaba ninkii wax kala haysta suuq guddi board buu leeyahay si miir qabo waxaad haysata la kaalay hadaa documents haysata xaq hadu leedahay waxaan isku doodayso la kaalay boardka de loo yaa la hor dhigi
كل كاس وجوان كوجود بينه وسيرك كل واقي إنك واحد نسيج بيننا إن نضطك حقيقة ترتقي وشيبنا أرضي بدن باكو قناع علي لكن مركي إيدي ما دام قلنا صحافة ضاي كل أرضنا دي إيمانا يعني وحقه إن أرضي ويديسان ورأرضي يوم مجرد بعض لا ده مسجر ترو ويدي أنا أنا جو وكيله أديك كو وكيله سعرت وحبرسنا صحفيه فالأرض جا كوي ما يوحد ويديسا هذا أفرتي سنة دوكسي قال نحن صورنا ما يشتو إيه كي ما كبح لها سنة كيف كبح لي نويدي أنت نويدي أرض جي كبح تيرين فوردين بس سنة كان فورين نوفر سنة جي هذا أركتان أرض تيرين فوردين كبح يون أديني دبي وسعرت وحبرسنا عليه أنا قاعد قاعدنا لكن مر والب واحد يدي شيء الدوران إنه وده ديجنا يكو سنة يعني سديدات يفهمون مشروع بقى إذا كان ويدي مشروع بقى إن لو وده اكتفى السديدات فصل دوسي سريع الدنيا كي كتعلق برسول راديو عالم كمية لقى متشتو أرضي واحد كل دود يعني يدي لي ما دينا يستار كدورتي واحد يقولين مع والدك كل دود يعني وسير كولي منين أفرتي سنة نكتي هاي أفرتي سنة شرعي مية هرتا بلاكوت شو تمعنا وأنا هرتا قرنا خسطان أفرتان سنة دقتي إن كري يسووا 14-15 لا أيو سكندري فورمك إسكت تجي قالت كنا يسقى على هاي وارثي إيجا نوجا مرخاتي يقول دقوا واردين تو كلام سير محمد أحمد علي ويقران وافهم بلا ربض العيوب أنا جا كبحيني سيركم ما أنت أنا لما تشوفين أنا ما دنوحكم مغنا وسيركم فرنتكم مغنا واحد ساجر إني وإحنا وافهم إيه كانوا نبحينني العكس فورمك كانوا نبحينني هذا ما تهي تريمت وسارد اللي جريو دنبي أيوه كلام ما تهي هدب الدنبي يجوا أي كلام وسارد ده واحد برصده واحد هيروم وبريوم بهاي ما هين صحافتنا تجان إن مالها كبوقنا ما هين والدنبي جوانو قالوا وسارد من نجع في لسان مش نجع في ميسان أنت أصلا بشكل كوكبني والدنبي قالوا قرك قالوا ده واحد برصنا كقلم لكن يجي يصير واحد قرليهين أي ده صحافة دي مركز هال كان نجا كويل نجا قبته وعي كوا ما واحد ما بدروا كمتير مركز واحد لا يحي أنا قد قريت له وسيركم بنفوليننا نولا ومقام وأنا صدق سنة والأرض جاء أفر سنة لما يستوعدكم هاي ستامجرتوا كو قف كيلو وكبو كإيركي أما التهريب باك كم مقنا إدوج من تسعة هيستبوركو وكينا يا واحد لوترنا يا ونتردين فوردين لوتكا جلي إنه يهي لوتكا حتى تاي نيكو ديري كلامتشلو مركا أما امتحان هلا قاعدو أما واحد قيمين هلاقو وغاين ديت كان واحد ديدنا أرض كهر مرة هذا المنهج كيسي وحنا هين أرضي هذا بعض الله تهيون بعض لب حيسام مركا إنك 14-15 إيه ككبحي سنة كدنبا نود عيننا إنه درجة في عندكم جتبوه مركا وحوي تورك عن خلينا تفافيسان واكا وحوي كي مركا يسوي وح لوتش كان هيستاره وسيركم مركم مقاي هاي أنا جا وكيلة وحي امتحانات كقصة بسنوان مقرورنا يسوي مير قبائل نجها نوي ما تقول دبوا وسيركم مجعابي قد جاي جالس هوشة قبائلنا هل لي ما تدوق من تسكو وطيع عبر سديس لكن ما إن بوق للسبيعي كان لس وحبة كورني ميس هدي بوق صيص عذرا توسرد وحي أود ولا حتى فهم تري جيني كوديدو وقد جيني سبريك اللي هو فريسيو هرت وين إنه أرض يوم على الكراهنا وإحنا آدي هذا كانوا قاعد بلينا يا قد جي واردين ت محمود أحمد علي وفهمتي قرأت في عرورته قصة أبوال شايس كبحية عرورته والدك أي أنا كنا قد جي الله صاري أرنتي قعدت عم كوهينا وسيرك أصاري كل الوالدين ترى وانس أرجني لكن صحافة ساعة إلي كتشوتي يعني أنا عذر ضاك وانك قعدنا ويش يجين إن عرورته قلديهين إن سقال ده وحور دجان إن واحد أنا أقول لك وحنا مارنا محنك أنا واقف كوسير كنا كوه هذا يرنتي ونداورني وأنا كأقبل لي أرنتي نقول دي بعدك عن تكوه يا وحي لو ما تسأل نسرق أنا إن الله كنا سيدي بنلوجو كيريا لكن قفنا يون اسم عاشين أو وحنا حق رهين يون دوني تن امتحان كنا وسيركم مركو فراقة يسير ضمبة كمان تناقض ما تو شوف فرايد بقمن دونا إن شاء الله ديت كأنك شيء دون سدوا وشجنا وثرد والديار طبعا كأقدم بيجي شو امتحان كشون مرة فيه سدوا وسيركم شيء لكن ديت كي سدوا وسيركم شيء سجد كل واقع دون دبان وكسر قمن دونا أنك حنسان إنه واحد لقول حساب تبعي عبارة نعي ماله وفتيو وسيركم كان وكر الدرا واحد وكر بحيا بري قلبات حاجة بدل على صور وريا ديت كون كسر لنا لكن شو مرة فيه إن شاء الله وليتكم شيء دونا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.